Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalayaal, aabbayaal, waan idin salaamay. Waxaan idinku salaamay salaan ay ku dheehan tahay kalgacal iyo islaamnimo. Anigu waa Mudane Daahir Axmed Faarax oo ah halgamaa reer Jabuutiya, isla markaana daneeya cilmi baarhka aadamaha iyo bulshada. Maanta waxaan jeclaystay inaan ila wadaago daahfurka barnaamij cusub oo aan ugu yeedhay Maanmaal. Hoostan aan kaga qoray iscabir adigoo ay arrimuhu ku cad yihiin. Barnaamijkaasi wuxuu ka jawaabayaa baahi aan ogaaday, isla markaana wuxuu xoojinayaa cabiraaddeenna daaran ka gudubka dhibaatooyinka ina hor yaalla. Jabuuti markay tahay dhibaatada weyn ee ina hor taalli waa kelitalinta Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhowrka qof ee qaraabadiisa ah. Haddaba maxaan barnaamijka Maanmaal aan ugu saaray amaba ugu magac daray? Meel dheer ha ka doodoonina, maanku waa mid aan laga maarmin sida qaalibkaana uu aadamuhu wax ku garto, wax ku gorfeeyo, waxna ku go'aansado. Maan wuxuu la halmaalaa maskax, miisaan iyo meelmarnimo. Wuxuu la halmaalaa caqli, cilmi iyo ciraabo. Maanmaalku uma nugla caadifadda. Maanmaalku uma nugla caadifadda. Haddaba barnaamijkani cusub waxa aan rabaa inaan ka bilaabo qayaxinta ereyo asaasiya oo dhagaheenna inta badan ku soo noqnoqda, sida ereyga bulsho, ereyga dhaqan, ereyga ilbaxnimo amaba xadaarad, ereyga dowlad, ereyga xukuumad, ereyga dimuqraadiyad, ereyga dhaqaale, ereyga aqoon iyo kuwa kale. Maanta waxaan jecelahay inaan ka bilaabo qayaxaadda labada erey ee u horeysa ereyada asaasigan soo sheegay, kuwaas oo kale ah ereyga bulsho iyo ereyga dhaqan. Bulshooy maxaa tahay? Bulsho marka la soo koobo waxaa lagu qayixi karaa waa dadweyne habaysan, taasoo ka dhigan waa dadweyne wadaaga dhaqan, dhul, dhismo, sooyaal iyo rabitaan aayo ugu yaraan intaa wadaaga. Ereyga dhaqan isagu marka la soo koobo waxa uu ka dhigan yahay waa sida ay bulsho wax u aragto uguna nooshahay korka dunida, iyadoo nolosheeda korka dunida ku salaynaysa aragtida, sida ay wax u aragto. Waa sida ay bulsho u nooshahay iyadoo ku salaynaysa aragtideedana ugu kor nooshahay dunida. Si kale haddaan u dhigo, dhaqan waxa weeye sida ay bulsho wax u fikirto, sida ay bulsho u fikirto, sida ay wax u aaminto, sida ay wax u dareento iyo sida ay wax u fasho ayaa la odhani karaa. Haddii si kale loo dhigo, waa qayaxaad kooban oo la soo ururiyey si ay u fududaato sharaxaaddu. Haddii aad faahfaahin u baahatiin ood rabtiin inaan ku sii socdo, waad soo sheegaysiin. Laakiin sidaa kooban ayay ila noqotay inaan niigu soo bandhigo ereyada asaasiga ah ee dhagaheenna inta badan ku soo noqnoqda. Maanta halkaa ayaan ku joogaynaa barnaamijka. Barnaamijkani wuxuu socon doonaa ugu yaraan hal mar toddobaadkii. waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.